baashe oo asaguna khadka ku jira inuu dooda hore usii galo oo u hadlo macadka haybad soo dhawow doctor waa mahadsantahay ustaad cabdinuur waa mahadsantihiin dhammaan kasoo qaybgalayaasha waxaan kaloo mahad ballaaran u jeedinayaa doctor tahliil doctor xuseen iyo doctor cabdiweli oo maanta warbixin naga siin doona deegaanada ay ka howlgalaan barnaamijkan covid-19 waxaad la socotaan inuu noo soo socday oo 3 kulan hore aan soo qabanay kulankan waa kii afraad marka haddii la yiraahdo kulankan waxaan ku falanqayn doonaa su'aalihii maanta Puntland iyo Jubbaland ka kala socday oo ah xaaladda COVID-19 diyaar garowga haybad in waxyaaba xiriirka qaranimada Soomaaliya gaar ahaan dhinaca siyaasadda dhaqaalaha marka la socoshada xaaladda COVID-19 ee waddanka ku soo kordhisay waxaad ogtiin inay saameyn dhaqaale mid bulsho mid siyaasadeed intaba ay leedahay marka weli waxaan maraynaa stage koowaad oo ah dhaqaalaha iyo bulshada iyo caafimaadka dadka Soomaaliyeed cudurkan soo ku haya maxaa diyaar garow ah waxaan iskaashi ka samayn doonaa si aan uga faa'iideysano cudurkan si hore loo sheegay challenges uu keenay opportunities uu abuuray marka aanan ku sii dheeraanaynin waxaan fursad siinayaa oo ku soo dhaweynayaa Dr. Tahliil Ibrahim agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Hirshabelle Dr. Tahliil soo dhawow waxaad haystaa 15 daqiiqo bismillah marka hore waxaan rabaa inaan salaamo akhyaarta maxadka Hibert casuumadii noo sameeyeen aad iyo aad ugu mahadsantihiin sidoo kale waxaan rabaa inaan salaamo asxaabta dhigayga ah dooda igala qayb qaadanaysa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Galmudug agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed sidoo kale waxaan rabaa inaan salaamo ka soo qaybgalayaasha sharafta leh aad iyo aad ugu mahadsantihiin salaamu calaykum ramadaan waxaan rabaa inaan wax yar dul maro sidoo uu ahaayay nidaamka caafimaadka intuusan caabuqan coronavirus-ka intuusan iman ka hor yani sidoo uu shaqeyn jiray iyo nidaamka caafimaadka sidoo uu ahay markuu yimidna muxuu ka bedelay wax rabaa wax yar oo introduction ama hordhac sanadihii ugu dambeeyey wuxuu iska ahaayay bukaan wasaaradda caafimaadka waxay sida la soconaba healthcare systemka ka mid yahay wadamada ugu daciifsan shaqaalaha xagga financiga waxaa loo yaqaan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha marka horeba haysan dhaqaalo filan lagu qawaayeen inta ugu badan private sector-ka iyo hay-adaha ka shaqeeya bini'aadanimada waxaa jirtay system ku shaqeeya xagga caafimaadka laga soo bilaabo markii laga hadlayo systemka wuxuu ka kooban yahay 5 qaybood qaybta ugu horeysa ah isbitaalada ku yaala regionalka oo la regional hospitalka waxaa ku soo xigo isbitaalada ku yaalo degmooyinka waxaa ku soo xigo health centers
ama xarumaha caafimaadka bixiyo adeega aasaasiga sidoo xagga adeega oo laga bixiyo oo u badan xagga wacyigelinta iyo hooyada iyo dhallaanka inta badan focuska la saaro ayadoo sidaas tahay oo caafimaadkii iska liitay xaqaa noo yimid cudurkan covid sidaa ogsantihiinba 16 bishii mars ayaa lagu dhawaaqay kayskii ugu horeeyey ee Soomaaliya sidaas ay tahay dawladdu waxay qaadatay tillaabooyin runtii wax ku ool ah waxay joojisay isku socodkii diyaaradaha ka imaanaya wadamada internationalka iyo mar dambena waxay joojisay localkii waxa kale soo rogtay bandowyo cudurkan yani looga hortago faafitaankiisa waxyaabahaas oo dhan ayadoo laga duulayo ka wasaarad ahaan wasaaradda Hirshabelle ama maamulka Hirshabelle wuxuu ahaa state-kii ugu dambeeyey runtii ku yimaado state formulation processka Soomaaliya resource badan ma jirin xaq aqooneed oo runtii ka jirtay laakiin waxyaabaha aasiga oo sameynay waxaa ka mid ahay markii cudurkan uu sameeyey guddi oo xil saaray arrimaha inay ka shaqeeyaan covidka guddigaasoo ka koobnay heer wasiir maalin kastana way kulmaan waxayna ka aragsadaan arrimahan covidka sidoo kale wasaaradda caafimaadka waxay samaysay guddi oo technical ah anagoo raacayno maxaa la yiraahdaa national emergency preparedness and response plan oo lagu sax wixii wax looga qaban ilaa 8 qaybood oo muhiim ah oo runtii xoogga saaraya sidii wax looga qaban lahaa barnaamijkan covid sidaas daraaddeed wasaaradda caafimaadka Hirshabelle waxay samaysay guddigaas markii aan sameynay waxaan sameynay kulamo aan la yeelanay hay-adaha ka shaqeeyo arrimaha caafimaadka iyo bini'aadanimada waxaan isku keenay inta labada gobolka Shabeellada Dhexe iyo gobolka Hiiraan hay-adaha ka shaqeeyo waxaan la yeelanay kulankaas ujeedadiisu wuxuu ahaa sidii wax looga qaban lahaa wacyigelintana looga qaadi lahaa saro arrimahan ku saabsan covidka xaqiiqatan waxaan sameynay waxa ugu muhiimsan oo la sameyn karo ahayd wacyigelinta sida ogsannaaba hay-adahan waxay gacanta ku hayaan xarumaha caafimaadka ayay support garayaan waxaan sameynay wacyigelin ku saabsan cudurkan siduu u faafo waxyaabaha lagu kala qaado waxaasoo dhan wacyigelin ku sameyn waxaan sameynay boorar ku qoran tahay halku dhigyo muhiim u ah ka hortagida cudurkan covid sidoo kale waan ka xumahay runtii xaqiiqatan waan u tacsiinaa waxa ku dhintay wasiir dowlihii wasaaradda diinta iyo awqaafta Muumin Khaliif Tuxu xaleenahay jannatul firdaws ilaahay ha ka wareeyo waa ninkii ugu horeeyay wasiir ah oo ku dhintay cudurkan haleelay dabcan waxaan ogsanahay covid-19 wuxuu gaaray ka gees Soomaaliya awoodii wax lagu baari lahayn xaqiiqatan aad ayay u yar tahay wadanka waxaa ka jiro 2 shaybaar ama 3 shaybaar midna wuxuu yaalaa Xamar midna wuxuu yaalaa Garowe midna wuxuu yaalaa Hargeysa oo lagu baaro cudurkan covid way jiraan waxyaabo kale iyadana runtii muhiim ah oo lagu baaro sidaas daraaddeed wasaaradda caafimaadka awood ah baaritaan ku saabsan covidkan weli ma isticmaalin laakiin waxyaabaha asaasiga aan sameeyno waxaa ka mid ah waxaan aasnay goobihii karantiilka sidoo kale waxaan sameynay number oo local ah ay dadka soo wici karaan ay xaqiiqatan ka heli karaan wacyigelintii waxyaabaha ku saabsan barnaamijkan covid sidoo kale waxaan sameynay saa hore u sheegaba xarumaha caafimaadka waxaan u sameynay tababaro ku saabsan arrimahan covidka iyo siday ula tacaali lahaayeen waxa kaloo sare aan u qaadnay waxa la yiraahdo surveillance systemka yani dabagalka cudurkan sida ogsoonay maadaama cudurkan uu ku cusub yahay maysan ku jirin waxyaabihii la soo report garay jiray oo daily ahaa oo cudurada notifiable disease ka ah marka waxa systemka lagu soo report garay loo yaqaan E1 lagu daray covid-19 calaamadihiisa iyo in la soo report garay
shaqaalaha waxaa lagu tababaray inay soo report garay karaan calaamadaha markay arkaan COVID-19 ay systemka soo geli karaan si loo ogaado dabagal iyo contact tracing loo samayn karo. sidoo kale isbitaalada ku yaala gobolada waliba qaasatan isbitaalada labada gobol ku yaala Beledweyne Hiiraan oo ah iyo Hirshabelle oo ah Jowhar waxaan xoogga saarnay sidii ay shaqaalahan maadaama ay front line ku jiraan sidii badbaado ayaga naftooda u badbaadi lahaayeen hay'adda WHO iyo wasaaradda caafimaadka federaalka ayaa waxayna siiyeen PPE qalabkii oo loo yaqaan personal protective equipment la gashana laga hortagay sida face mask-ga iyo gloves-ka waan ku wacyigelinay xaqiiqatan shaqada hadda si wanaagsan ayay u socotaa barnaamijkan hadda COVID inkastoo capacity-ga oo aad u yar yahay maxaa yeelay resource-ga la haysto iyo resource-ga human-ka ah oo aad u yar iyo haddee caqabadu oo wato barnaamijkan COVID-ka xaqiiqatan hawl adag oo culus ayaa weli hortaalo federaalka xaqooyin badan ay caawiyeen hase yeeshee ugu testigaray lahay capacity tracing-ka lagu sameeyo sidoo kale oo soo rito COVID-kan oo kale sida ogsanahay waxay u baahan yihiin qofka markii uu dadka waliba da'da ama cudurrada hore u jiray sida macaanka ama dhiigkarka qabay ama asmada waxay aad ugu nugul yihiin in ay cudurkan uu soo rito hase yeeshee waxay u baahan yihiin markaas waxa la yiraahdo life support in loo sameeyo oxygenadii iyo qalabkii mashiinadii ay u baahan yihiin waana dareemi karnaa oo hadda capacity-gaas ama mashiinadaas ma jiraan qaasatan state-ka hadda Hirshabelle although in xamar la keenay ay deeq lagu keenay weli inay soo gaarin laakiin waxaan sheegay inay soo gaari doonaan maalmaha soo socda marxalad transmission oo ah cudurkan COVID dadka Soomaaliyeedna weli maysan aaminsan majority-ga oo dadka Soomaalida weli ma aaminsano cudurkan inuu jiro marka sidaas daraadeed waxa aan xoogga saarnaa anaga xagga wacyigelinta radioska kala duwan oo ku yaalo gobolada waxaan ku sameynay inaan message-ka fariinta markasta ka soo daayno dadka laga wacyigeliyo sidoo kale inaan sameyno doodo dhaqaatiirta oo key figures-ka ah ugu muhiimsan inay markastaba imaadaan ay radioga imaadaan ka doodaan su'aalana la weydiiyo ayaan sameynay marka waxaan xoogga saarnay xagga wacyigelinta waxa kaloo wax aan ka sameynay maadaama hadda ay xuduud la leedahay gobolka Hiiraan Ethiopia waxa jirta 4 meelo laga soo galo gobolka Hiiraan oo ah oo la yiraahdo entry points-ka ayagana waxaan u sameynay shaqaalo baaro oo gooni oo la socdo marxaladaha dadka soo galaya dadka baxaya movement-gaas la socdo inkastoo hadda dhaqaaqi iyo waxyaabaha aysan xirnayn jaadkiina la xiray oo dawladda ay xaniftay haddana hadde awoodii iyo capacity-gii wax intaas la eg lagu qaba lahay ayadana aaday u limid garaysan tahay marka inahaasoo dhan wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka Hirshabelle way ka shaqeysay ayadoo kaashanaysa hay'adaha kala duwan ee ka shaqeeya Hirshabelle xagga caafimaadka waxyaabo badan oo kala maalmaha soo socdo oo ku wasiira marka xagga transportation-kina aad u liitaa oo because haddii diyaaradihii flights-kii la xiray waa caqabad in la soo saaro gaari ka soo qaada Beledweyne ama ka soo qaada degmooyinkan Bulburti la Jalaqsi ayadana aad ay u dhiban tahay security-ga iyo waxyaabo noocaas ah marka sida guud wasaaradda caafimaadka way u diyaarsan tahay inay runtii ka jawaabto intii awoodeeda ay la tahay barnaamijkan COVID-ka anagoo kaashanayna hay'adaha ka shaqeeya caafimaadka iyo dawladda federaalka wasaaradda caafimaadka xafiiska ra'iisul wasaaraha runtii uu dadaal wax badan oo dadaalay
wuxuu ku deeqay wuxuu siiyey lacag oo $500,000 ah oo loogu talagalay in lagula dagaalo barnaamijkan COVID-ka statekeena way soo gaartay qorshaheedana waa wadnaa hadduu ilaah yidhaha inaan wax ka qabano oon meelihii xarumihii wax lagu qaban lahayn ka qabano marka waxa ugu muhiimsan waa dhanka wacyigelintana hadda si xoogan u socotaa hay-ad maxaa la yidhahdaa sheeg boorarkii ku qornaayeen waxaasoo dhan waa la daabacay messageka ma fariimihii loogu talagalay maxaa la yidhahdaa COVID-ka ayagana bulshada way ku dhex socotaa inkastoo bulshada weli oo jiro local community resistance oo ku saabsan xagga cudurkan fahamkiisa iyo jiritaankiisa iyo waxyaabahaas dhan marka culimadana runtii door muhiim ah ka qaadatay culimada weliba khaasatan magaalooyinka beledweyne iyo jowhar oo runtii uga caansan wacyigelin bay ka sameeyeen maalmaha jimcaha ah waxaa lagu soo qaataa khudbooyinka yani dhibaatada uu leeyahay cudurkan iyo wax sida loo kala qaado marka xaqiiqatan xagga wacyigelinta waxaan dhihi karaa aad ayay u socotaa inkastoo fariimihii iyo talooyinka la siinayo bulshada aysan qaadan inaysan kala fogaanshihii iyo mataqaana sheeg xirashada waxyaabaha asaasiga u ah inaysan kuu soo gudbin hawada ama dropletskan runtii xaqiiqatan weli ma dhaqan gelin laakiin overall waxaan wadnaa wacyigelin insha allah hadduu ilaah yaraan waan sii wadi doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin taliil aad baan kaaga mahadcelinayaa saad waqtiga u ilaalisay iyo macluumaadka iyo xogta qiimaha badan oo aad nala wadaagtay waxaan soo dhaweynayaa Dr. Xuseen agaasimaha guud wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Dr. Xuseen codka iska fur soo dhawow 15 daqiiqo ayaad haysataa Dr. Xuseen ma maqlaysaa maxamed sheekh aad u mahadsan tahay dhammaan waxaan baadicinayaa dadkii nagu casuumay goobtan iyo tiimka dhigayga ah Dr. Cabdiweli iyo agaasime tahliil labadaba si fiican isula shaqeynaa معهدكن waa u mahad celinaa koonfur galbeed ahaan dowlad goboleed koonfur galbeed waxay dhiseen laba guddi ka kooban sida maamul goboleedyada oo kale guddi hoostagaayo madaxweynaha oo ah ministerial committee iyo guddi oo technical ah oo wasaaradda ay magacaabay oo aniga lead gareenayo waxaan diyaarinay xarumaha loogu talagalay badqabka tacaalidda cudurka COVID-19 waxaan soo gudbinay lana wadaagnay hay'adaha UN-ka iyo dowladda federaalka xogihii oo aan ka soo aruurinay xarumihii aan ka dhigi lahayn isolationka iyo quarantine-ka waxaan la xiriirnay hay'adaha UN-ka iyo NGO-yada anagoo qabanay 3 season oo Zoom meeting ah every week waxaan ka hadlaynay waxyaabaha noo qabsamay iyo waxyaabihii la isaga baahan yahay waxaan kaloo abuurnay rapid response team la dhahayo team oo heer gobol heer degmo ilaa heer maamul goboleed gaaray waxaan leenahay anaga saddex gobol oo ah Baay Bakool iyo Lower Shabeelle iyo 18 degmo intaba xogteeda waxaa noo soo aruuriyo degmooyinka dadka jooga waxaan kaloo la kulannay dhammaan shaqaalaha caafimaadka isbitaalada iyo dhammaan xarumaha caafimaadka kuwa private-ka iyo kuwa oo dowladda ay leedahay intaba iskugu yeernay maamulkooda marka aan ka hadalna xaaladda COVID-19 ee deegaanka koonfur galbeed ilaa hadda waxaa la helay sambalka la helay oo la qaaday waxa waaye 96 sambal ayaa la qaaday waxaa cudurka laga helay 24 xaaladood waxaa jawaabtooda hadda la sugayaa 61 xaaladood waxaan cudurka waxaa laga helay 11 xaaladood 24 xaaladood laga helay waxaa negative noqday aan ka wadaa 11 xaaladood waxaa cudurka hadda
xarumaha la asteeyey ee soo diraan maxaa lahay sambalada sida Baraawe, Marka, Afgooy, Ceelasha iyo maxaa lahay Baydhabo hadda aan joognaa intaas sambalada laga keenay. sidoo kale diyaar garow dhinaca dowlad goboleedka iyo xarumaha caafimaadka laga sameeyey. waxaan sameynay 3 xarumood sida Baydhabo oo 20 sariir ee taalo, laakiin wax oksijiinada yaala hadda hal oksijiin maxaa lahay aan ku haynaa, laakiin oksijiimo kale way yaalaan gobolka iyo maxaa lahay degmadaba, laakiin waxay gacanta ugu jirtaa hay-adihii iska lahaa. dowladana ay hoos imaadaan xilliga rabnana waa ka qaadan karnaa, laakiin waxaan ka wadnaa hadda waxaan gacanta ku haynaa hal oksijiin oo xaruntaas taalo 20 sariir iyo daawooyinkeeda. Afgooy waxaa noo taala 12 sariir. sidoo kale xarumaha la asteeyey waxaa ka mid ahayd Xudur, iidan waxaa taala 25 sariir, laakiin ma taalo wax oksijiin Afgooy iyo maxaa lahay Xudur ma yaalaan wax oksijiin ah. sidoo kale waxaa qorshaha noogu jira Baraawe iyo Marka, hadda assessment yaa lagu wadaa insha Allah markuu labada hadda degmo ugu badan ee laga soo gudbiyay xaaladihii positive ahaa maadaama ay yihiin, waxaan ku talagalnay inuu maxaa lahay ayagana loo sameeyo isolation iyo quarantine area. dhammaan hadda xarumaha shaqeeyo wax agab buuxa haystaan ma lahan. waxaan kaloo maxaa lahay waa naloo keenay maxaa lahay xafiiska wasaaraha iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda qorsheynta isku kaalmaysanayaan inoo keeneen agab, waana maxaa lahay dibna soo sheer garan doonaa insha Allah. agabkaas maxaa lahay 70 kartoon oo Baydhabo ah, 40 kartoon oo ah Baraawe, iyo 30 kartoon oo maxaa lahay Marka ah. marka kartoomankaas marka kartoon leena waxyaabo badan ku jiro oo naga anfacay oo xanuuntuna zaid u anfacay, laakiin ilaa hadda ma hayno wax oksijiin iyo ventilator ah. sidoo kale waxaa hay-adda WHO ka codsanay inay noo keenaan mashiinka la dhaho PCR polymerase chain reaction, processkiisu noo socdaa. tallaabooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee qaaday ilaa iyo hadda ay ku aadan xakameynta dhinaceeda waa aad ay u balaaran tahay. waxaan magacaabnay incident management team oo mar walba maxaa lahay heegan ugu jiro maxaa lahay meeshii goobtii wax laga soo sheegay inay maxaa lahay gurmad ka geystaan. wacyigelinta bulshadan way socotaa. sidoo kale waxaan diyaarinay xarumihii hadda aan soo sheegnay oo badqabka, waxaan soo gudbinay sidoo kale hay-adaha sida UN-ka waxay aad nooga taageereen maadaama anaga maxaa lahay capacity-geena oo aad u liito dhinaca maamul goboleedkeena. markaan ka hadlo maamul goboleedyada kale mooga ayagaa sheegi doona xog aruurinta, dhinaca xog aruurinta maxaa lahay ayagaa naga taageeray. OJA khaasatan WHO maalin ilaahay keen waxay nala garab taagan tahay meel allaala meesha aan isdhahno maanta meeshaan wax ugu baahan tihiin. sidoo kale xarumaha isolationka shaqaalaha hadda Baydhabo loo qaatay 50 shaqaale WHO incentive code bixinaysa. rapid response teamka ayadaa lacagteeda bixiso. WHO degmo walba iyo gobol walba xogta laga soo aruurinayo qarash fiican ay ku bixiyaan. cudurka saameynta uu ku yeeshay gobolka bulshada maxaa la aad u saameeyay. sidoo kale maxaa la dhaqaalihii aad u saameeyay, ganacsiga aad u saameeyay. waxaas oo dhan maxaa la anaga oo aad u liidan oo markii horeba maxaa la fatahaad iyo abaaro ay saameyn jireen aadan cudurkan noogu darsamay. taas sadar muku su'aal ka dhan waaye. saameynta dhaqaalaha cudurka maxaa la wata hadda ka sheekeynay. shirkadaha iyo ganacsatada iyo jaamacadaha kulli waxay ka qayb qaateen sidii loo xakameyn lahaa cudurkan. iskuulaadkii waa la fasaxay iyo jaamacadihii. shirkadihii hormuud ugu horeysa waa tan maalin walba wacyigelinteeda ay soo gaaraysa. bulshada rayidka maxaa la waxay u istaageen inay wacyigelin ka sameeyaan kaamamka oo si volunteer maxaa la wasaaraddan ay ku tabarucdo
IEC materials ka isticmaal lahaayeen wallahi bulshadu waxa la ay koonfur galbeed aad ay wax u wacyigelin walaalahooda oo maxaa la aan tabarta u haynin aanan maxaa la soconin waaqic haddeertaan waxay dadka kala barteen cudurka iyo maxaa la dadka uu ku dhaco iyo dadka oo maxaa la ugu nugul meel walba maxaa la wacyigelinta xoogga la saaray khaasatan 32 hay-adood oo ka shaqeysa maxaa la koonfur galbeed waxay xoogga saareen wacyigelinta heerka iskaashiga ee dowlad goboleed koonfur galbeed iyo dowladda federaalkana aad u xooggan yahay waa taa hadda idin sheegay saddex gobol saddex degmo maadaama ay wax soo gaarsiiyeen oo haddana ay rabaan inay wax weli soo gaarsiiyaan qorshe badanna ay ka diyaarinayaan xafiiska wasaaraha khaasatan aad iskula xiriirna waana aad u mahadsantihiin intaasoo kusoo koobi lahaa warbixinteeda Dr. Xuseen waad mahadsan tahay xogta qiimaha badan oo nala wadaagtay iyo waqtiga aad noo soo hambaysayba aad baan kaaga mahadcelinaynaa waa isu soo laaban doonaa kulley dadka dhegeystayaasha waxay qabi doonaan su'aalo waxaan kusoo dhaweynayaa Dr. Cabdiweli agaasimaha guud wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Galmudug Dr. Cabdiweli codka iska fur soo dhawow 15 daqiiqo ayaad haysataa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلب وناكسن رمضان وناكسن دمان أصحابتك وجدت ماشان مركز كود waxaan rabaa inaan mahad celiyo Ilaahay ka soo oo ahay macadka hibad musuuqa qaabiyay munaasabadan aadka u qiimaha badan ee uga hadlayno arrimaha saameeya adduunka gaar ahaan ummadeena Soomaaliyeed ee coronavirus iyo oo ahay diyaar garowga la xiriira waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahad celiyo Axmed Nuur Daahir iyo Dr. Dodishe oo oo ahay ugu soo xiray systemkan intaas kadib waxaan rabaa inaan u guda galo inta badan saaxiibaday muxuu ahaa agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Dr. Xuseen iyo Dr. Taliil ayaa ka dhawaajiyay waxyaalo badan oo iska mid ka nahay oo maamul goboleedyada iska mid yihiin waxyaalo badan oo la qabtay sidaan ogsoonahay waxyaalaha ugu horeeya ee caafimaadka marka laga soo tago caafimaadka iyo waa u geli doonaa haddii la yiraahdo waxa laga hadlay inuu leeyahay cudurkan uu keenay muxuu ahaayay economic impact oo ku leeyahay ama dhaqaale saameyn dhaqaale oo ku leeyahay bulshada inuu ku leeyahay muxuu ahaay saameyn bulsho oo ku leeyahay oo muxuu ahaayay bulshadii maskaxiyaan iyo wada dhaqankoodii iyo qaab nololeedkoodii dhammaan oo isbedel ku yimid haddii adduunka tahay gaar ahaan midda Soomaaliyeed isu socodkii bulshada iyo isku xiraanshihii iyo wax wada wadaagii iyo shaqadii intaba inuu saameeyay meesha uu maraayo haddii bilo uu sii socdana muxuu ahaay aad looga baqaayo inuu dadka Soomaaliyeed waxyaalihii yararka ay soo kabta sanadeed u dambeeyay inay collapse galaan oo dhinac walba ku saabsan food security haddii aan leed cunto yaraan haddii aan leed shaqo la'aan baahsan oo timaada maadaama meelihii laga shaqeey jiro dhammaantood ay muxuu ahaa ay saameysay muxuu ahaa arrimaha iibida problemka Dr. Taliil iyo Dr. Xuseen aad uga dhawaajiyay systemka Soomaaliya markaan ka hadlayno caafimaadka markii hore ayuu aad muxuu ahay u dabacsanaa taas waxa si dheer arrin anaga kaliya ma aan adduunka dhinac wuxuu ogaaday waxyaalaha secondary-ga iyo tertiary-ga inuu sidii la rabay aan loogu diyaarsanayn oo anaga gaar ahaan dadka Soomaaliyeed waxa caawin jiray hay'adaha UN-ka iyo hay'adaha international-ka iyo kuwa local-ka iyaga la shaqeeya ayaa qaban jiray kaalintii dawladda inta badan maadaama kaalintii dawladda ay qaban jireen marka waxay focus ka saareen lacagta ku bixi jireen waxyaalaha primary health care loo yaqaano oo hooyadii dhallaanka Soomaaliyeed in la badbaadiyo inta badan ujeedooyinkooda ay tahay muxuu ahaayay secondary-ga iyo tertiary-ga iyo waxyaalaha qalliinka iyo intensive care-ka iyo oxygen-ka iyo u baahan waxay ahaayeen waxyaalo aan inta badan awood badan aan la gelin waxyaalo waxay ahaayeen markii hore wixii shaqeeyaana ay yihiin wax barayfada isbitaalkaas Digfaar oo aan garanaynaa ugu weynaa waxa Soomaaliya ka jira asagana 20 sariir oo ICU lahaa tabarta marka muxuu ahaa u diyaar garowga guud oo hore secondary iyo tertiary-ga wuxuu ahaa qaabka hadda baahida timid degdega adduunkii timidna waxay noqotay intensive care unit iyo muxuu ahaayay iyo primary health care iyo secondary tertiary noqotay meeshii markii hore aan ka liidanay baahideena u badatay taasi waxay keentay marka isku dhaxyaac badan inuu yimaado in muxuu ahaayay adduunkii iyo Soomaaliya intaba ay ogaato awoodda caafimaad aan leenahay inay aad u hooseyso capacity-ga marka laga hadlaayo ka jawaabida arrintaas taas ay Galmudug la wadaagtaa Soomaaliya inteeda kale iyo adduunkaba
primary health care waxyaalaha lagu shaqeyn jiray waxyaalaha xarumaha caafimaadka ku shaqeyn jiray laakiin isbitaal secondary ama tertiary service bixiya oo ka shaqeeya ma jirin deegaanada intooda badan taasi waxay keentay marka in arrintaasi si yar in laga soo bilaabo ay noqoto waxyaalaha focuska aan saarnay marka koowaad waxaa kamid ah ka galmudug ahaan iyo ka wasaaradda caafimaadka galmudug in uusan ku dhicin horta interruption uusan ku dhicin adeegii socday oo hore u socda xarumaha caafimaadka inaysan adeegoodii interruption uusan ku dhicin hay-adaha ayaan kala hadalnay arrintaas waa ka wada fariisanay waxaana go'aan ku qaadanay inaan saameyn aysan ku imaanin adeegii hore u socon jiray midka muxuu ahaa soo kordhana aan diyaar garowgiisa iyo ka shaqayntiisa aan muxuu ahaayey aan galno taas waxay keentay bilowgii markii arrintaani ay soo korortay meel walba waxaa laga sameeyey guddiyo guddi ayaa waxa ku dhawaaqay dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye ayaa guddi muxuu ahaay ka kooban wasaarado iyo gobolada iyo madaxtooyada ayuu u magacaabay muxuu ahaay wasaaradda caafimaadka ay liid garaynayso guddigaasoo leh overall leadershipka iyo coordinationka awaamir ayaa madaxweynuhu soo saaray bilowgiiba oo ku saabsan xuduudda in la xiro muxuu ahaayey la geeyo timam caafimaad la kontrolo dadka xuduudaha soo gelaya maadaama galmudug ay leedahay xuduud aad u dheer oo muxuu ahaayey ku teedsan xuduudda Ethiopia oo in la kontrolo lafteeda aad ay u adag tahay xuduuddaas ayaa la amray in la xiro jaadka in la joojiyo la kontrolo soo gelitaanka adeeg caafimaad la geeyo muxuu ahaayey dadku ay qaataan awaamirta caafimaadka wasaaradda caafimaadka kala fogaanshaha iyo salaanta in la joojiyo iyo muxuu ahaayey isu soo baxyada waaweyn iyo xafladaha iyo waxyaalahaas oo dhan awaamirtii wasaaradda caafimaadka ayuu ku dhawaaqay madaxweynuhu amar ku bixiyey in muxuu ahaayey la raaco kadib guddigii ayaa howlgalay muxuu ahaa coordinationkii iyo shaqadooda ayay bilaabeen taas marka waxyaalaha aan focus ka saarna waxa weeyaan cudurkaani waxyaalaha priority-ga noo ah annaga waxa weeyaan ka hortagga ayaa priority noo ah sababtoo ah 10% wax lamid ah laga yaabaa intensive care unit inay u baahdaan marka 90% kale inaan muxuu ahaay waqtigeedu aan ku dhumino intensive care unit inaan ka fikirnaa qorsheenu ma ahayn wuxuu ahaa wacyigelinta iyo muxuu ahaay la xiriirida bulshada iyo gaarsiinta informationka dadkii loogu talagalay inaan ka shaqeyno wuxuu ahaa waxyaalihi aan ka shaqeynayno wasaaradda caafimaadka iyo guddigu bay ka shaqeynayaan in la yareeyo stigmada ka imaanaysa markii qof la baaro cudurka laga helo in muxuu ahaa stigma aysan ka imaanin stigmadaasina aysan keenin dadkii inay ka cararaan in baaritaan lagu sameeyo oo ay diidaan waxaan ognahay muxuu ahaay dad badan oo Soomaaliyeed cudurka qaba ama galmudug ha ahaato meel kale ha ahaatee laakiin dad badan oo kamid ah ayaan u diyaarsanayn weli inay muxuu ahaay systemka soo gaaraan oo ay muxuu ahaay sheegaan inay xanuunka noocaas oo kala qabaan guddigaas markii la sameeyey kadib wasaaradda caafimaadkana sidii tiimka iga horreeyay ka hadleen dee waxaan leenahay system midaysan oo federaalka iyo annagaba aan kusoo heshiinay oo ah guddiyada caafimaadka sida loo dhisayo heer wasaaradeed heer gobol heer degmo ilaa community aan dhisnay oo muxuu ahaayey community based response teams aan sameynay district based response team aan sameynay regionalka ay kusoo shubaan informationka kadibna ay ku shubaan muxuu ahaay federaalka ay kusoo shubaan wasaaradda caafimaadkana guddiga weynaa oo covidka muxuu ahaa loogu talagalo stateka oo iyada wasaarad ahaan la hogaaminayo ay kusoo shubto intaas kadib waxaan sameynay qorshe 3 biloodla ah oo budget gareysan ayaan dejinay oo arrintan looga jawaabayo oo ku salaysan 9 strategic muxuu ahaa objectiveskii ama interventionskii muxuu ahaa aan isku raacnay wasaaradda federaalka ayadoo lagu salaynaya waxaan dejinay budget iyo balankiis shaqadaana waxaan uga qabanayno balaankii waxaan u gudbinay la wadaagnay hay-adaha UN-ka iyo dhammaan inta nala shaqeysa iyo dowladda federaalka intaba dowladda federaalka ayaa nooga soo jawaabtay oo noogu deeqday lacag 1 milyan qaybtii u horreysana waana soo gaartay ayadana muxuu ahaayey balaankii loogu talagalay ayaa lagu fuli doonaa shaqadii aan ku qaban doonaa haddii aan la yidhaah waxaan sameynay kulamo joogta ah oo muxuu ahaayey wiigla ah oo waxaa jira aan la leenahay onsos iyo muxuu ahaa oo isu keenta dhammaan UN-ka oo lagu falanqeynayo arrimaha galmudug ku saabsan oo ay leeyihiin guddiga oo wasaaradda caafimaadka ay hogaaminayso aan la yeelano usbuuc walba oo muxuu ahaa interventionska ay wadaan lagu coordinate gareeyo baahiyaheena aan ku gudbino wixii noo qabsoomana aan ku gudbino aan ku kala war qaadano arrintaas marka intaas looga soo gudbo ka wasaarad ahaan muxuu ahaayey coordinationka markii intaas looga gudbo oo waxyaalihii muxuu ahaayey leadershipka coordinationka ah case managementiga markii loo yimaado haddii xaaladdaani timaado maxaa la sameynayaa boqolkiiba muxuu ahaa 5 ilaa 10 ayaa laga yaabaa inay u baahdaan intensive care ama isbitaal nooga baahdaan maxaan sameynaynaa haddii noo yimaadeen waxaan sameynaa marka hore waxaan u diyaarinay tiimamka caafimaadka oo xarumaha ka shaqeeyo case-ka qaabilaya frontline health workerska ayaa waxaan u sameynay training
intensive crane oo lagu tababarayo cudurkani wuxuu yahay iyo sida uu la tacaamulayo patientiga iyo qofku ka shakiyo hadduu arko sidii uu yeeli lahaa dhammaan iyo sidoo asaga naftiisa u ilaali lahaa inta kalena u ilaalin lahaa ayaan muxuu ahaa lagu tababaray tababarkaas markii la sameeyey waxaa la diyaariyey xarun isbitaalka weyn oo regionalka Dhuusamareeb waxaan u diyaarin xarunta ugu weyn oo stateka oo muxuu ahaayey aan ugu talagalna marka hore capacity 20 ilaa 30 sariira inay ku shaqeyso shaqaale muxuu ahaayey 60 ilaa 70 ay ka shaqeeyaan ayaa la diyaariyey already xaruntii waa la furay muxuu shaqaaleedii waa la diyaariyey way shaqeysaa kaliya waxa ka dhiman sariirihii iyo wixii dhan already anaga dhiganay locally laakiin on oxygenada anaga muxuu ahaayey naga kala dhiman ayadana haddii la yiraahdo waxaan rajeynaynaa in noo soo dhameystiranto insha Allah taala waxaan sameynay sidoo kale muxuu ahaayey waxaan u qaybinay dhammaan guidelineskii la raacayay oo muxuu ahaayey de nationalka ah wasaaradda caafimaadka federaalka iyo anaga wada lahayn oo wada sameynay ayaa loo qaybiyay dhammaan aan ku qaybinay xarumaha muxuu ahaayey loo daabacay caafimaadka si shaqaalaha caafimaadka ay u raacaan oo muxuu ahaayey u yareeyaan faafitaanka cudurka oo u fududeeyaan maamulidiisa iyo daaweyntiisa marka la helo qofka waxaan sameynay sidoo kale marka loo yimaado awaamirtii muxuu ahaayey madaxweynuhu ku amray in xuduudda la xiro waxaan sameynay tiimam caafimaad ayaan u diyaarinay borderka Cawdaaq iyo aan kala wadaagno Cawdaaq iyo Balanbal ay la wadaagaan Ethiopia borderkaasaan teams caafimaad u diyaarinay already ciidankuna way xireen jaadka iyo sugilitaanka inta waa la control laakiin wali waxaad moodaa jaadka inuu muxuu ahaayey maadaama wax lacag badan ku jiraan uu yahay qaab inuu ku soo siibanayo ku soo galayo laakiin muxuu ahaayey go'aana ka yaala in la control waa la gubaa waa aad loola dagaalaa arrintaasna way socotaa sidoo kale waxaan sameynay muxuu ahaayey sample collection center aan sameeyno isbitaalka weyn ka sameynay oo sampleka aan ku qaadno ku aruurino samplekaasna ilaa hadda wuxuu marayaa in la collect gareeyo la qaado muqdisho loo qaado sidii de agaasimo tahliil iyo tiimka ay ka hadleen culays badan laga maro transportationkiisa in diyaarada la sugo in muqdisho la geeyo in shaybaarkii loo qaado natiijadii la sugo kadib jawaabtii la helo time inay qaadato ayadana sidoo kale marka preparation noocaas oo shaybaar asagan inaan helno ama rapid test ha aado mid si degdeg ah wax lagu baaro ama PCR ha aade in aan helno at least wax aan uga maarmeyn inaan diyaarad sugno iyo maadaama saameyn transportationka dhinaca diyaaradaha ay timid oo diyaaradii aysan imaanaynin muxuu ahaayey waxa la sugayo diyaarad 5 bariba 4 bariba hal mar imaanaysa ay tahay in aan taas uga maarano saambalada la qaaday ilaa hadda aan qaadnay degmooyin badan aan ka qaadnay sida Gurceel Balanbal muxuu ahaayey Dhuusamareeb Gaalkacyo meelo badan oo muxuu ahaayey case laga soo sheegay iyo waxyaalaha oo eegan muxuu ahaayey saambala ka qaadnay ilaa hadda waxa positive noqotay afar case oo saddex kamid ay tahay Gaalkacyo kaliya hal kamid inakii ugu dambeeyay oo noqday Dhuusamareeb welina waxa wadnaa baaritaanadii iyo muxuu ahaayey saambaladii waa direynaa marka waa arki doonaa jawaabaha ku xiga ayagana waxay noqdaan maadaama cudurku uu joogaa dad deegaanka laakiin dadka ayaa weli muxuu ahaayey wacyigelintii waxay ka cabsanayaan istigmada iyo hebel corona ku dhacday in la yiraahdo marka annaguna waxaan la dagaalankeeda wadnaa inaan u fahansiino waxaan wax normal ah hargab oo kale inuu yahay dadka dhan oo ku dhacayo qof ka dhuuman kara oo soo jirin laakiin loo baahan yahay in systemka la soo gaaro qofkuna dad kale u ilaaliyo asaguna uu ilaaliyo systemkan culayska uu ka qaado oo muxuu ahaa systemka uu culays saarin haddii dadka hal mar soo wada dhacaan sidoo kale muxuu ahaayey waxaan sameynay marka loo yimaado waxa loo yaqaan risk communication community engagementiga ama muxuu ahaayey dhinaca wacyigelinta hay'adaha anagoo kaashanayna deegaanka ka shaqeeya iyo WHO intaba waxaan tiimam caafimaad oo markii hore loo aqoon jiray wacyigeliyaasha oo talaalka oo booliyada iyo ka horreyn jiray ayaan degmo walba iyo tuulo walba ka activate gareynay anagoo kaashanayna WHO inaga caawisay si loo gaariyo guri loogu tago oo bulshada muxuu ahaayey door loogu garaaco report laga keeno si joogto ah uga aruurinaa reportiga si joogto ah community contact ula leeyihiin wacyigelinta si ay wax badan uga bedelaan dhab ahaantiina wax badan ay ka bedeleen hadda ayaa muuqata oo saameynteedu already waa la dareemay dadku muxuu ahaayey waxaad arkaysaa meel walba tagtid dadku isma salaamayaan way kala fogaanayaan way jiraan qaar aad isu jecel oo muxuu ahaayey salaanta isula soo dhawaanaya garbaa iska salaamaya laakiin waxaad moodaa in dadku muxuu ahaayey wacyigoodu intuu aad uga fiican yahay gacmaha iska meerayaan laakiin waxa laga yaabaa meelaha qaar facilitieski kuma fillo hand washingkii meel walba ma yaala laakiin meelo badan oo la dhigay intii markaas capacity-ga hay'adaha iyo wasaaradda ay ahaayeen iyo guddiga ay ahayd
waxa la daabacay waxyaalo badan oo tilmaamayaal ah oo tilmaamaya muxuu ahaayey wacyigelinta iyo kahortagga cudurkan ama kuwa la dejiyo ha aadan kuwa muxuu ahaay xarumaha caafimaadka iyo maqaayadaha iyo meel walba lagu dejiyo ha ahaato ama ha ahaato muxuu ahaay bilboradii waaweynaa ama ha ahaato idaacadihii iyo muxuu ahaayey messagekii joogtada ahaa ee loo marinayay dadka muxuu ahaayey codbaahiyaasha ay maqlaan oo dhegaystaan ay ugu fudud loo marinayay intuba aad ay u socdaan waxaa sidoo kale aan sameeyay Dr. Abdul waqti waa ka sii dhamaanaya soo koob okay sidoo kale muxuu ahaayey waxaan sameynaa analysis-kii oo ku saabsanaa waxyaalaha ka yimaada data noo timaada continuous-ka online-ka ayaan si joogta ula soconaa iyadana data-daas waxayna si tusisaa marka meelaha cudurrada calaamadaha u eegay ku badan yihiin iyo meelaha si ku badnayn iyo muxuu ahaayey kaysaska xarumaha imaanaya sidaas darteedna waxaan tracing ku sameynaa xarumaha muxuu ahaayey reportiga uu indicate gareeyo muxuu ahaayey weli waxaan wadnaa marka haddii la yidhaahdo in waxaan aad ula shaqaynaynaa UN-ka in lasii balaariyo oo muxuu ahaay lasii balaariyo wacyigelinta aan wadno hand washing kitskii oo hygiene kitskii dhammaan laga qaybinaya xarumaha caafimaadka oo dhan UNICEF aan kala hadalnay already muxuu ahaay distributionkeedu socdaa IDB-da laga qaybiyey wacyigelinta la gaarsiiyey inta badan muxuu ahaayey capacity-gii hay-adaha jooga galmudug iyo wasaaradda caafimaadka levelkoodii waa la gaaray bulshada laakiin waxaan leenahay weli faan ole fari kama qodna maadaama cudurkii weli uu jiro riskigiisa uu jiro culayskiisa weli uu dhiman yahay oo sida muqdisho u soo gaarin haddii uu sida muqdisho kale u soo gaaro muxuu ahaa culays badan ayaan la kulmaynaa dhinaca supply-ga noo yimaada inta badan wuxuu u badan yahay waxyaalahan PPE-ga loo yaqaano oo personal protective equipment-ga waxyaalaha intensive-ka ah oo oxygen-kii iyo weli muxuu ahaa ballanqaad ay joogaan level ballanqaada oo wasaaradda caafimaadka federaalka iyo xafiiska prime ministerka inoo ballan qaadeen laakiin weli waxaan hayno ma jiro oo xarumaheenu aad ayay ugu baahan yihiin waxaan rabaa marka inaan inta badan moralike waxaan muxuu ahaa shaqooyinka la hayaa waa shaqooyin isdhexgelaya dhinaca dhaqaalahan rabaa wax yar inaan marka hal minute aan dul maro saameyn dhaqaale oo muuqata ayay ku leedahay deegaanka galmudug waxaa jirta sample aan sameynay oo muxuu ahaa assessment yar aan sameynay oo aan ku sameynay food itemska ugu waaweyn essentialka aan ku sameynay midka ugu yar labadii bilo ugu dambeysay waxa ku korortay 60% marka taasi waxay ku tusaysaa saameyn dhaqaale inay bilaha soo socdaan yeelanayso haddana ay leedahay labadii bilo ugu dambeysay ay 60% bulshada ku korortay ascaarta muxuu ahaayey qutul daruuriga ee dadku ay helayaan waa mahadsantiin saaxiibayaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عبدولي آد بعد ما حسنت هاي حكت أدنى لو ذاكتي يسيدا وقت عاد ود ذا شيء دكتور تاليل يا دكتور حسين يا دكتور عبدولي دمانتين مركلة يعني إذن ما هدعلنا يا حكت أدنى سيسين مركلو جاي حكتي وزير كي عافمت جبلان يو وزير دولي وفافين تبونتلان إن لو ذاك مركلة فيريو وحامو قطع دولة الثورة الصومالية حفيز كبران ميستر كهو جامين أيو iyo maamul goboleedyada shaqo xoog leh inay socoto heerka xukuumadda iyo heerka bulshada laakiin waxaan u baahannahay inaan xogta inta isu geyno aan talooyin ka soo saarno talooyinkaasna cid kasta oo ay khusayso wixii ay ka khusayso ay ka qaadato ama xukuumadda ha ahaato heer federaal ama maamul goboleedyada ha ahaato ama bulshadaba ha ahaato marka waxaan u baahannahay su'aalo badan oo dhageystayaasha ay qabaan baa jira marka waad soo laaban doontaan Dr. Taliil iyo Dr. Hussein Dr. Abduli aniga waxaan hadda ku wareejinayaa hawsha Cabdinuur Daahir si uu noogu maareeyo waqtiga inta ka dhiman aad u mahadsantihiin Dr. Maxamed aad u mahadsantahay waxaan kaliya laab ugu mahad celinayaa saddexda doctor saddexda agaasime macluumaadka sharafta lana siiyey runtii aad u dhageysanay gaab jiray ama wax aanan ogeyn way noo siyaadiyeen wax aan ogeyn ama aanan muxuu ahaay aan wax yar ka ogeyn way noo dhamaystireen marka waan u mahad celinayaa waxaan rabaa dhageystayaalka inaan xasuusiyo waxa bilaaban doonta qaybtii su'aalaha iyo jawaabaha waxaan rabaa qaabka su'aalaha loo jeedinayo inay noqoto qofkii comment qaba meel chat box ka jirto oo meeshaana oo lagu soo qoro inuu ku soo qoro magaciisana uu ka bilaabo iyo title-kiisa ama macnaha dadka inuu isbaro su'aashiisana ay koobnaato qofkii raba aan wax qori karinina farta uu taagan karaa meel farta laga taagtaa jira waan ku soo qaban doonaa su'aalaha la soo qorana agaasimayaalka anagu waqtigooda aan ilaalinayno ayaan muxuu ku ugu muhiimsan ka dooran doonaa laakiin intaana su'aalaha gelin sii diyaarsada waxaan rabaa inaan u yeero
Dr. Khalid Charles oo dadka khadka ku jira kamid ah oo expert comment inuu ka bixiyo asaguna sida ay tahay maamul goboleedyada iyo qaabka waxaan codsanaynaa codadka in la xiro qofkii aan hadlayn marka waxaan u yeeraa Dr. Khalid Charles hadaa maqlaysa Khalid qodka furo doctore soo dhawow sida aragtidaada 5 daqiiqo السلام عليكم رمضان كريم عبد النور ومحسن tahay inaan maqlaysiin rajeena adiga iyo agaasimaashii saaxiibada kale oo mahad celina waxa kale ma rabin waxaan rabay inaan iyo su'aal israaciyo anoo saaxiibada kale tixgelinayo waqtigooda Cabdi Nuur hadii oo lii ogolaado agaasimayaasha waa wada dhageystay Dr. Xuseen ugu hormar rabay Southwest wuxuu sheegay WHO kale inay aad caawinayso hawsha COVID-19 ee kula dagaalayaan laba gudina la shaqeysay meel waxaan su'aal ka weydiiyay su'aal technical ah 18 degmo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ma wadaaga halka isbitaalka weyn oo Baydhabo hadda ugu talagasheen COVID-19 oo leedahay oxygen yari ka jirto tusaale hal oxygen na sheegtaan jecel hadii warkii dhaafin ama si kale u fahmin arrin kale oo rabay Hirshabelle inaan weydiiyo waxay ahayd amniga iyo caqabado ka sheekeeyay waa ognahay meel shabaab ka taliyaan jirto oo la tagi karin culaysaas dhan waa dareemaya laakiin waxaan rabay response-ga COVID-19 istiraatiijiyad waxaa jiro saaxiibo qaar oo meesha ku jiro qaadeen oo isleeyahay official man tusaalana hadda team dhalinyaro la shaqeynaya waxaa jira WhatsApp chatbot iyo Facebook bot waxaan sameynaa anagoo isla online wax ay ku sameeya totally ma shaqeynayso because of dadka ma joogaan meeshan target audience-ga marka adinka wacyigelinta wadaan tusaale culimadii oo kale waxaa sheegtay jimcihii in masaajidadu weli furan yihiin oo ay dadku wacyigelinayaan marka ma maamulku si ogaal u fasaxay in masaajidii weli la isugu imaanayo taasna su'aalan ka qabay iyo IDPs ay ku gaaraan Hirshabelle aan weydiinay Dr. Tahliil agaasimaha wasaaradda caafimaadka sida galmudug wax su'aal uma qabin warkiisa aad u fahmay marka faalada kaliya aan raacisana waxay tahay istiraatiijiyadka guuleystay fadlan aan raacno markii dad bulshada loo shaqeynaa mas'uuliyad guud ah jirto xilli la dhaliilo ma la joogo culeysya jiro in la midoobay in gacmahooda jir wax lagu qaabilo un baa furan kii dhakhtar iyo qofkii ma aragtay aqoon kale ahba haybadna waa uga mahad celinaa doodan loo baahnaa su'aal guud ah jirtay oo rabay inaan wada weydiiyo ugu dambeyn oo ah wasaaradda caafimaadka team kamidana waa weydiiyay aniga dhakhtar xamar ku sagana ahay su'aashaas waxay ahayd xafiiska wasaaraha hawsha hadda iyadoon qarsooneen anoo rabay inaan siyaasadda aado hawsha wada arrintaas oo kale pressure ma kaga imaanaysaa ilaa gudashada waajibkii haddii oo la dhiso committee mar walba waxaa ognahay musiibo dhacdo committee la dhisaa marka inay hirgalaan qodobada aad degsateen ka maamul goboleed ahaan saddexdii maamul goboleed su'aasha ku socotaa arrintaas oo xafiiska wasaaraha wax liid gareeyaan oo wasaaradda aysan liidka saxda haysanin ah culays mid ku keenaysaa aad ma santiin aad iyo aad u maasan yahay Dr. Khalid su'aasha uu noo soo jawaabiyay uu noo soo su'aalaha uu soo riday waxaan u maleynayaa inay bareysteen agaasimiyalku ay ka jawaabi doonaan waxaan haatan u yeerayaa qof kale oo asaguna expert comment qaba oo kamid ah dadka dhageystayaalka Xasan Maxamed Cali Ustaad Xasan aad maqashid codka iska fur Xasan Nadaara ayaa ugu qoran iska fur codka waxaan ka rabaa 5 daqiiqo inaad ku soo koobtid commentiga aad qabtid kadibna su'aalaha ayaan sii gali doonaa بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتين دمانتينا وان أمهد علينا قاسمياشا نقل صقيب قلها برنامجك حرونتها بدنا صداقة لو ما سنتين دمانتينا هدي أن أقول قالوا برنامجك waxaan qabaa su'aal iyo comment labadaba sida ogtiin mujtamaca Soomaalidu waa mujtamac aad u madax adag ayaan dhihi karaa waxyaalaha qaar oo xaqiiqda ah aysan u fududayn inay si sahal ay ku qaataan meel walba adduunka ka joogaan xitaa ma kuwa Soomaali jooga kaliya kuwa mujtamacaadka kale ee tagay wadamada kale ayaa naftarkooda dib laga qaba laga sheeganaya waan arkay maaladooda Mareykanka oo kale meel oo xarumo maaragtay ay lahaayeen cafeteria oo la xiray oo police iyo ay tageen marka waxa ii muuqata sida warbixinada aan dhageysanayay in aysan jirin wacyigelintan tirada badan waa la sameeyay laakiin dabagal iyo xaqiijin sida u fuli lahayd inaysan jirin marka waxa ii muuqata inaysan jirin aaliyaad xoog badan oo sidii loo xaqiijin lahaa maaragtay arrintaas sida u fuli lahayd inaysan muuqanin مثلا in shirkadihii meelaha kambaniyada markaa tagtid oo hormuud oo kale nation shirkadaha oo ganacsiga meelaha bangiyada markaa tagtid inay dadka sida u fadhiyaan oo safafkii iyo wixii la marayay sidood ay yihiin suuq markaa tagtid sida ay yihiin maqaayado ay furan yihiin masaajidadii aan wax isbedel jirin
dhammaan meelihii mujtamac iskugu imaanayaan inaysan wax isbedela kaaga muuqanaynin markaad tagto daraasad aad samayso u dhaba gasho arrimahaasi waxay muujinaysaa inaysan dadka waxyaalahan fariimaha la isku daridirayo iyo meelahan la tagtegayo inaysan wax weyn ka qaadanin oo isbedel xoog la aysan jirin marka in hay-adihii amniga doorkooda meesha ka maqinaha ayaa ii muuqata aniga waxay ahayd ragga shirkadahaas le kambaniyadaas le maqaayadaha le masaajidada culummada dadkaas oo dhan in la xiriiro wadahadal xoog leh iyo jalasaad lala yeesho lagu adkeeyo in ay fuliyaan shuruudo iyo nidaam la duldhigo haddaysan fulinaynin in maaragtay tallaabo laga qaado arrimahaas ayaa ii muuqata marka arrimahaas sidee ayaa maxaa ku qorshaysan agaasimayaasha maxaa xiriira ka dhexeeya hay-adaha amniga iyaga waxaan marna suurtagelaynin in arrinta taalle aysan keliya aysan ka koobnayn wasaaradaha caafimaadka ayna fulin karin dowrkii hay-adihii amniga aawe qaabkee ayaa loo suurtagelin karaa arrinkaasi waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo maxay tahay wada shaqaynteedan kala dhexayso idinkii hay-adaha amniga ilaa hadda ma maqleen warbixinada intuu socday hay-adaha amniga kaalinta ay qaateen marka laga reebo xuduudo la xiray wax intaa dhaafsisan maanan maqlin arrinta kale ah maadaama caqabad weyn ay ka jirto xagga cayinaadka wixii la qaaday sida loo soo gaarsiin lahaa suurtagal ma tahay xilligan in dib loo furo gaar ahaan duulimaadyada gudaha in la furo iyadoo laga cararayo dhaqaale xumi xoog leh waddanka kusoo wajahan iyadoo maaragtay isu socodka xitaa gurmudkii gudaha caqabad badan ay ka taagan tahay maadaama dhulkii baxooga ilaa xaddi maa la socdo arrintaas in pressure lagu saaro dowladda suurtagal ma tahay su-aashaasna waan qabaa labadaa su-aalood oo ah suurtagal ma tahay in dib loo furo ugu yaraan la khafiifiyo duulimaadyadii waxoogaa dib loo soo celiyo iyo hay-adaha amniga wada shaqaynteedan kala dhexaysa maxay tahay labadaa su-aalaan qaba agaasimayaasha in ay wax un ay ka ifiyaan aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsan yahay ustaad xasan maxamed cali xasan nadaara waan kugu mahad celinaynaa ustaad commenti fiican bixisay waxaan rabaa hal su-aal oo kale dheeri inaan ku daro kadibna agaasimiyaalka aa siiyo su-aal qoraal nagu soo gaarto waaye kasii dibdooduhu way sii socon doonaan nin la yidhaha cusmaan cali cusmaan buule oo jooga kigali rwanda waxa uu leeyahay mas-uuliyiinta macquul ma tahay in la xakameeyo cudurka marba bulshadii wacyigooda hadduu hooseeyo isku socodkii magaalooyinkana uu jiro sida maqaayadihii hoteeladii iyo masaajiddiina ay furan yihiin waxaan malaynayaa in aynay fahmeen agaasimiyaalku doodaas ama su-aashaas oo ah sidee suurtagal ku tahay in la xakameeyo cudurka haddiiba bulshadii wacyigoodii hooseeyo isku socodkii magaalooyinkiina uu furan yahay hoteeladii iyo maqaaxiyadii iyo masaajidiina ay furan yihiin marka waxaan rabaa inaan ku hormaro دكتور عبد الولي soo dhawow su'aalahaas wixii kaaga baxay waxaan kaa rabaa 3 daqiiqo ugu badnaan inaad kusoo koobto بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتاي عبد النور ظاهر waxaan rabaa muxuu ahaayey in aan ka bilaabo commenti meesha la soo dhigay oo soo dhigay qof ugu qoran yahay Lenovo oo ka hadlay sidee lagu gaarsiiyaa wacyigelinta meelaha ay ka taliyaan al-shabaab dhabaantii su-aashaas haddii aan soo koobo ma jirto wacyigelin toos oo ka socota deegaanada dadkaas ay ka taliyaan sababtoo waad ogtihiin oo idaacadaha ka hadleen si public u hadleen waxayna ka soo horjeedaan fikirka ah ka hortegitaanka covid-19 marka annagu ma aanan gaarin weli meelahaan ka hadlayna waa meelaha accessible-ka galmudug dhowr degmo 3 degmo aan accessible ahayn hadda inta kale accessible intaas waay waxaan ka hadlaynaa waxaan u gudbayaa Dr. Khalid oo ka hadlay Office of Prime Minister inuu leadershipkiisa wax saameyn ku leeyahay ama impact ku leeyahay waxyaalihii adinka aad qabanayseen waxaan aaminsanahay saameyn tiro badan kuma lahan sababtoo ah waa qalinkii ugu weynaa oo wax ku heli lahayn aan aaminsanahay waxaan aaminsanahay qayladhaantiisu inay ka weyntaa qayladhaantiisa teena marka waxaan aaminsanahay haddii aan si sax u wada shaqeyno oo annaguna shaqada qaybteena qabanno ayaguna waxaan uga baahanahay inoo keenaan sida aan uga dalbanno waxaan aaminsanahay inay wax noo kordheen maahan waxba nagama nusaamin taas halkaasaan uga gudbayaa nadaara xasan nadaara waxaan leeyahay wuxuu yidhi walaalkay waxaan weydiiyey hay-adaha amniga iyo sidee wada shaqeeyaan wasaaradaha caafimaadka ama guddiga iyo lockdownka oo flightska muxuu ahay in la furo maxaad ka qabtaan waxaan aaminsanahay horta low enforcement awareness kaliya looma baahna ama awareness raising looma baahna ama wacyigelin kaliya looma baahna waxaa loo baahan mararka qaar kood low enforcement yaa loo baahan low enforcementna waxa sameynaya wasaaradaha caafimaadka ma aha waxaa loo baahan hay-adaha amniga inay qayb ka yihiin
sidaas darteed galmudug ahaan guddiga la magacaabay oo madaxweynuhu magacaabay waxaa kamid ah wasaaradda amniga wasaaradda amnigana active role ay ku leedahay muxuu ahaay fulinta waxyaalaha awaamirta soo baxa waxaa laga yaabaa meelaha qaar awaamirtaba inaysan kor ka soo bixin sidaas darteed wasaaradda amniga ama wasaaradda caafimaadka keligood iskama fulin karaan mararka qaarkood waxaa jira waxyaala aan la gaarin oon laga hadlin oon awaamirteedii la bixin ayaa jiri kara sidoo kale waxaan leeyahay marka wada shaqayn buuxda naga dhexaysa guddigayna kamid yihiin active role-ayna leeyihiin laakiin wixii aan la samaynin waa wax muxuu ahaay lagu midaysan yahay muxuu ahaay oo ka oolin sharci gud ka oolin waxa ku soo haray muxuu ahaay flightka aniga waxaan aaminsanahay flightka in la qafiifiyo aadan u aaminsanahay sababta aan u aaminsanahay waxa weeyaan galmudug ahaan waxaan ugu furan 2 xuduudood oo cudurka uu ka jiro labadaba oo ah Puntland iyo Muqdisho inta baan ugu furan yihiin dadka baabuurtii saaran yihiin wadooyinka ay socdaan Muqdisho ay ka imaanayaan insha Allah Muqdisho ay joogaan maantana galmudug ay joogaan marka haddii diyaaradaha la qafiif maalintii ama maalin dhaaf ay u yimaadaan oo kale aniga waxaan aaminsanahay isu socodkuna uu noo fududaa lahaa culaysaduna way naga fududaa lahaayeen cudur gooniya keeni lahayn oo baabuurka uusan keenin inuusan jirin anigu aaminsanahay bulle ugu dambeeya oo muxuu ahaayey ka hadlay suurtagalnimada in la xakameeyo cudurkan inta muxuu ahaayey ay jiraan waxyaalo ka hor imaanaya wacyigelinta aan ka hadlayna iyo xakameynta sidee suurtagal u tahay suurtagal waa tahay suurtagal 100% ma noqonayso laakiin qayb kamid ah suurtagalaysa inta waxyaalo badan oo duruufo ku xiran oo muxuu ahaay Soomaaliya u goonina waa jiraan ama maamul goboleeda u gooniya laakiin waxaan aaminsanahay ayadoo weli intaas jiraan haddii la joogteeyo waxa jira waxaan ognahay oo muxuu ahaay experience loo leeyahay waxa behaviorka loo yaqaano ama muxuu ahaay waxa xilli soo jiri jiray maalmo iyo usbuucyo kuma bedelmaan marka waqti u baahan yihiin marka waqtigaas ay bedeli doona bulshadana way qaadan doontaa wax muxuu ahaay fariimaha loo gudbinayo qayb badan oo kamid ah way qaadataa over aad iyo aad u mahadsan tahay Dr. Cabdiweli waan ku mahad celinaynaa commentigaada qiimaha badan aad bixisay waxaan marka la codsanaynaa su'aalaha marti sharafta weydiin doona annaka ayaan go'aaminaynaa textiga adigu inaad ka jawaabtiin ma ahan annaka idin soo gudbinayna su'aalaha oo idin soo doorayna aadana u mahadsan Dr. Cabdiweli mar kale waxaan ku soo dhaweynaa Dr. Tahliil commentiskii iyo su'aalihii la dhiibtay qaabka ugu macquulsan 3 daqiiqo oo bannaan inaad ku soo koobto ayaa ka codsan asalaamu calaykum mar labaad aad iyo aad u mahadsantihiin mar labaad waxaan rabaa Khalid su'aalaha oo soo weydiiyay khaasatan Hirshabelle oo ku saabsan xagga amniga sidoo sheegay horta wadanka waa isku wada mid inta badan yani wadanka marxaladihiisa iyo baahiyooyinkiisa dhamaantood waa isku wada mid waxa jira waxyaabo duruufo gooni ah gobol iyo degmo iyo gooni ah amniga guud Hirshabelle ahaan xaqiiqatan amniga caqabad weyn ayaa ka jirto meelaha ay nimanka xarakada ay haystaan si wax lagu gaarsiiyo aad ay u adag tahay although inaan ismacaalnay local community-ga inay at least bal arrintan ay wacyigelin ka sameeyaan at the same time in aad u adag tahay in la muujiyo wacyigelin noocaas oo la yiraahdo COVID-19 jiro waxyaabo noocaas sidii aaminsan yihiinba sidii ka sheegeen ama ay communication ku sameeyeen arrimo dad kala keenanay ama dad kale muslim ahayn ay ka dambeeyaan macnaha marka horta arrintaas aad ay u adag tahay arrinta masaajidda ka hadashay xaqiiqatan horta arrintan waa responsibility u taala bulsho waxa loo baahan yahay marka dadkii Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay fahmaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka iyo waxyaabahaas oo dhan inay runtii ay si deeply u fahmaan bulshadana ay ka wacyigeliyaan kuwa ay ka yihiin culimada aad ugu farxay xaqiiqatan masaajidda si oo volunteer u xiray markay dareemeen dhibaatada iyo saameynta cudurkan leeyahay waxaan leeyahay culimada kalena ay ku daysadaan ay sameeyaan ka dawlad ahaan ama ka maamul ahaan xaqiiqatan horta aad u adag tahay masaajidan iyo in laga hadlo ama la xiro waxa ka dhalanayo aad bay sensitive u yihiin markii si loo fiiriyo marka wasaaradda diinta iyo qaafta iyo ayaa kulli hawlahaas ay aad u wanaagsan tahay inay ka shaqeyso ay muhiim u tahay su'aasha kale ah barakacayaasha xaqiiqatan sidaan ogsanahay barakacayaasha ama Soomaaliya dan waxay ka yihiin qayb weyn waana dadka la yiraahdo ugu nugul marka ay timaado dhibaato kama sii daran marka cudurka yimaado COVID-kan waxyaabihii runtii lagu wacyigelinayo war hal kala fogaado hal yareeyo isku socodka waxyaabo noocaas waxaad moodaa inaysan ka suurtagelaynin
barakacayaashu marxaladaha ayaga u gooni ah daraaddeed sidoo kale waxyaabaha aan sameyno marka si aan at least horta wacyigelin aan sameynay xarumaha barakacayaasha meelahay degan yihiin ay u badan tahay beledweyne iyo jowhar waxaan sameynay inaan sameyno meelo aan ka sameynay maxaa la yidhahdaa facility oo hand washing ah inkastay adag tahay helitaankii biyihii cabitaanka oo noloshii bini'aadamka kaafinaysay haddana hay-adihii iyo ka shaqeynaa waxaan kula talinay inay biyo u dhaamiyaan meelo gooni oo cayimanan waxaan u sameynay gacmo dhaq ee dadka isaga dhaqaan weliba si waadixa loo tusay waxaan geynay dad ka shaqeeyo community health care workers la yidhahdo ka shaqeeyo meelaha mataqaana IDP-da inay wacyigeliyaan cuduradan iyo waxaan iyo siday yihiin iyo meelahay ka heli karaan fariimaha iyo meelahay ka heli karaan wacyigelinta waxaas oo dhan ayay u tilmaamaan su-aasha ah xagga kule tacadweliya ka jawaabay arrinta ah office prime ministerka issues ama pressure ka imaanayo waxaan horta wax nagu cusub waay markay cusub yihiin xaqiiqatan pros and cons way leeyihiin faa'iidada iyo faa'iido darrada way leeyihiin waxa haddii dadka ku cusub yihiin cashiro badan laga baran karaa sida loo hagaajin karo coordinationka sida loo xiriirka iyo shaqada loo wada qaban karo way jiri doontaa xaqiiqatan shaqada markastaba 100% perfect maahan doonto laakiin so far xafiiska ra-iisul wasaaraha si wanaagsan ayuu noola shaqeeyey iyo wasaaradda federaalka weli maanan ka arkin waxyaabo caqabad noocaas hadda adiga aa sheegtay laakiin waa wax imaan karo maadaama hadda wixii wax cusub yihiin adduunyada kalena ay dabcan ay ka jirto waxyaabo noocaan ah xiriirkan iyo markay timaado aaday runtii muhiim u tahay in la tixgeliyo su-aalaha kale oo xaqiiqatan xiriir ka dhexeeya amniga iyo wasaaradda caafimaadka hay-adaha amniga ka shaqeeyo as-aasi ay u yihiin mar kastaba mar aan howl la qabanayo waxay muhiim u yihiin inay horboodaan shaqooyinka la qabanayo la-aantoona runtii lama samayn karo booliska iyo wasaaradda amniga iyo dhammaan waxay qayb ka yihiin interventionska hadda ay wasaaradda caafimaadka ee wado madaxweynaha iyo protocol teamkiisa dhammaan qaybay ka yihiin marka wax hadda caqabadaho naga haysta xagga amniga ama ma jiraan si wanaagsanna oo wada shaqeynaa arrinta ah flightska runtii cabdiwaliyan ka hadlay waa la qabaanay in at least la qafiifiyo laakiin at the same time waxaa muhiim ah interventionskii socday in mar kastaba la xoojiyo ayaa muhiim ah waxyaabihii la qabanaya haddii flightka maanta la furo waa dareemi karaa soomaalida waa caqabad weyn oo ku haya waxaa imaanaysa isku socodkii inuu bato at the same time socodka u batana waxaa badanayo faafitaankii cudurka marka in la qafiifiyo maalmo gooniya loo sameeyo xaqiiqatan aniga waa soo dhaweyn lahay si ay dadka fursad u helaan ay u yimaadiin yani magaalooyinka annagana noo fududaato caqabadaha naga haysta xagga transportationka ah sambaleskaan soo qaadayn iyo waxyaaba noocaas arrintaas xaqiiqatan waa muhiim arrinta kale oo ka dhawaajiye ah xakameynta cudurkan runtii xakameynta cudurkan wax hadda oo shaksi u yaalo maaha waa wax oo collectively community-ga iyo dowladda u yaalo runtii muhiim ay tahay xoog layska saaro dadka Soomaaliyeed wacyigelinta aad ay ugu liidataan xaqiiqatan sidaa sheegtaba yani maqaaxidihii waxyaabihii way furan yihiin dadka majority-ga boqolkiiba 70 maysan aaminin weli inaysan barnaamijkan aysan wax jira ahayn u maleeyaan hergab marka weydiiso wuxuu ku leeyahay ruuxan hergab duqoobay waaye ama hergab kibrey waaye iyo wade waxba kama jiraan marka waxaa muhiim ah in ay bulshadii ay ayaga mas-uuliyadda naftooda saaraan kana ilaaliyaan dadka ayaga ehelkooda ah saaxiibadooda ah waxa dadka dariska la ah ayagana ka naftoodana ka ilaaliyaan ayaa xaqiiqatan muhiim ah arrinta ugu dambeyso ah arrinta miyiga soo weydiiyey qof sidee wacyigelinta loo gaari karaa miyiga si horoo sheegnaba waxaa jiro reediyo shaqeeyo waxaa jiro hormuud waxay samaysay telefonka sidaa markaa soo wacdeedba waxay fariinta oo covidka ay ka hormarinaysaa dhicitaanka wicitaanka marka waxyaabahaas oo dhan waa tilaabo muhiim ah oo runtii la qaaday miyiga waa iska dareemi karaa dhibaato weyn ka jirto wacyigelintani way socotaa community health care workers wax la yiraahdo ama wacyigelinta bulshada ka shaqeeya caafimaadka ayagana way jiraan xaqiiqatan waa dadaalena marka waxaan umaleynaa su-aalaha oo ugu dambeyso xagga shirkadaha
sidaan ogsannahay shirkadaha waxay yihiin دكتور سؤالها أنك سوق عاملين هوس كقرن dadku soo comment gareeyaan adiga noo soo koob aad aan u maasanta su-aashan weydiiyaa ku jirta xasan oo weydiiyey haddaan qaldanin oo xagga shirkadaha marka shirkadaha horta waa muhiim weliba private sectorka aniga waxaan aaminsanahay sida hore u sheegnaba waddanka waxaa xooggiisa caafimaad ka shaqeynaya xagga private sectorka markay timaado secondary health care waana muhiim xilligan inuu iskaashi dhaco public private partnership wax la yiraahdo oo muhiim ah oo runtii xaqiiqatan u muhiim ah inuu barnaamijkan lagu waqt sida ogsannahay waxaa jirta dhacdooyin gooni ah oo dhacay qof xanuunsan oo neef oo markii isbitaal la keeno ay yiraahdeen waxaan aniga ma daaweyn karna mana qaban karneen meesha loogu talagalay gaarsii taasay kordhinaysa xaqiiqatan overwhelmed ay ka dhigayso meesha xarunta loogu talagalay in lagu daaweeyo covidka marka waxaan qabaa in istaraatiijiyad laga samayn karo iskaashiga ka dhexeeya privateka iyo dowladda si barnaamijkan loogu qabto wax weliba qaasatan isbitaallo oo loo designated hospitals in la sameeyo privateka ah dowladdana ay wax ku kabto ha noqoto xag financial xag support oo technical ah inay ku kabto xaqiiqatan waa muhiim marka shirkadaha laakiin door weyn ay ka qaateen wacyigelinta aad iyo aad u mahadsantahay soo dhawaad aad u mahadsantahay doctor Tahliil thank you so much waxaan rabaa marka inaan soo dhaweeyo doctor Xuseen kusoo dhawow commentiskii iyo su'aalihii la dhiibtay si kooban aan ka rabnaa inaan usoo qabto sababta su'aalo badan jira waqtiguna waa yar yahay marka inaan isku beeqaaminaa la rabaa soo dhawow doctor fadlan soo koob halo doctor Xuseen dhawaad cabdi mahadsantahay su'aalaha way badnaayeen laakiin aniga hal su'aala inta kale cabdiweli waxaa ka jawaabay doctor Tahliil hal su'aal aad maxalla focuska noo saarneed waxaa waaye xarunta oo maxalla Baydhabo laga furay ma bay bakool Lower Shabeelle maxalla koobtaay oo wiilkiisa maxalla u fahmay ma aan xarun oo kaliya ku eg maxalla xarunta dhexeysa bay bakool Lower Shabeelle ma aan xarunta Baydhabo waxaa iskugu imaanaya gobolka Baay oo dhan midaba kol xudur ay iskugu imaanayaan Lower Shabeellena waxay iskugu imaanayaan Afgooy laakiin gadaal waxaan go'aan ka qaadanay in lagu daro Marka iyo maxalla Baraawe Lower Shabeelle maadaama ay Muqdisho dhowdahay isku socodka dhinaca badda iyo maxalla gaadiidkan aad u furan yahay oo weli la xakameynin inkastoo anaga amar ka soo saarnay waxa kameen ma jirto hay'adaha amnigana waa isla shaqeynaa wayna la shaqeeyaan laakiin awaamirtu waxaa waaye iyo fatahaad ay jiraan هلا عدادس درن la saaro arinta tan ay ka sii dari doonto anagoo ka cabsanayna sidoo kale wax culays ma ku qabno maxaa lahayn in la shaqeeyaan xafiiska wasaaraha oo wax caqabada aan kala kulanayn jiraan waxyaabo oo dhinaca alaabaha oo soo gaara Muqdisho oo maxalla muddo internet inuu liitaa umaleynaya ma maqashaa doctor haddaa maqashid inaad soo koobtid codsaleen codka iska fur waxaan rabnaa inaad soo dhawaatid oo aad muxuu ahay su'aasha aad qabtid aad toos u gashid iska fur codka ii furan waa la maqlaa soo si fiican walaal cabdinuur waa mahadsan tahay sidoo kale waxaan mahad usoo jeedinayaa dhammaan asxaabta meesha ku jirto
barta ku kulansan xarunta hibaad ee barnaamijka isku soo dabariday agaasimayaasha xogta wanaagsan ee nala wadaagay aniga su-aal hadda oo aan dhihi karo su-aashaas ay dadkaas ku wajahan oo kooban wata laakiin commenti waxaan dhihi rabaa oo kooban inaan soo gudbiyaan rabay inta u badan waxaa dhibka jira waxyaabaha la sheegayo oo inta badan aan maqlayno ama ha ahaato heer dowladda federaalka ha ahaato ama heer dowlad goboleedyada ha ahaatee waxaad moodaa waxaa aad xooga loo saaraa barabagandada iyo waxaasan samaynaa ayaa aad u xoog badan laakiin infact markaa u timaadid xaqiiqadii maxaa la qabtay waxay kusoo aruureysaa ama xataa aad u korgeshid in wixii ay aad u kooban yihiin oo dadka run ahaantii wixii loo qabtay aad u kooban yihiin marka cudurkan dunida meelo badan uu runtii taabtay dowlado waaweyn oo sida la ogyahay maraykanka iyo dowladihii hadda adduunka ugu horreeyay ayaa oo systemkooda caafimaadku aad u fiicnaa ayaa ka cabaaday in hadda wax badan ka qaban karin keliya in la kordhiyo ka hortaga iyo waxyaabahan la yidhaahdo social distancing waxyaabahaas aad xooga loo saaray run ahaantii natiijo wanaagsan keenin taas marka waxay su-aal ku abuurtay mar labaad in la yidhaahdo dalalkan fragile stateka loo yaqaano sida Soomaaliya waxaan ka rabnaa aadam comment ma ahan su-aal haddaa qabtid inaad soo boodid waqti waa ka dhacaya su-aal keliya afran miya macnaha commentiga mafruud mahadsantahay aniga commentigaas qabay marka waxaan rabaa in barbagandada aad loo yareeyo xoogi inaan saarno wacyiga qodobkii wuxuu kusoo ururayaa in la yidhaahdo dadkan agaasimayaasha ee maamul goboleedyo ka shaqeeyay maxaad ugu talagasheen in wacyiga xooga la saaro tuuliskaad adeegsanaysaasi maxay tahay taasaa waxaan qabaa in xoog la saaro waa tahay aadam aad aa umahadsan tahay waxaan kaa rabaa waqtiguna aad uu noogu yar yahay waana soo koobi doonaa waxaan rabaa inaan u waco tooshow bashash oo asaguna farta taagta tooshow qadka iska fur hal daqiiqa haysataa fadlan min fadlika soo dhawow su-aasha aad qabtidna soo tuur waa idin salaamay saaxiibada meesha ka qaybgalaya anigu waxaan qabaa dhowr su-aalood agaasimiyaalkan raba inaan la wadaago su-aasha koowaad waxay rabaa inaan weydiiyo agaasimaha galmudug ka socday wuxuu noo sheegay in lacagtii 1 milyan loogu talagalay loogu baaqay ama loogu deeqay in qayb ka mid ay soo gaartay marka haddii uu noo cayimo karo lacag soo gaartay intay tahay meeqaa soo gaartay waa arrintaas aadaan usoo aan maxaa la yidhahdaa ii sheegaan waa tahay tooxu waa ku maqalnay aan u dhawi lahaa soo iibsadaan si caadiya sababtoo ah Soomaalidu markii dib ka dhacdhaco waxa waaye qabiil iyo degmo la isugu tagaa marka saasan macquul ma tahay waa tahay tooxu waa u maleynayaa inay ay fahmeen agaasimayaalku waqtigoo gaaban dartiis iyo afurkii nagu soo dhow dartiis waan soo gabagabeynaynaa waxaan rabaa agaasimayaalkuna ayakuna 1 iyo 2 iyo 3 inta ugu muhiimsan pointeska ay maqleen inay soo koobaan waxaan ku hormarayaa Dr. Xuseen Maxamed Daahir agaasimaha caafimaadka ee maamulka Koonfur Galbeed Dr. soo dhawow su'aalihii wixii kaaga baxay soo koob Cabdinuur waa dhawaad aad u mahadsan tahay markaan ku bilaabo su'aasha aadayna weydiisay al-shabaab ku adanid meel walba oo ay al-shabaab ka taliyaan qaabka wax ku gaarsiin karna ku gaarsiinayna anagoo maxaa lahaayay ka naxeena dadkeena oo yacni dadka ku nool deegaankaas arrintaas meesha ku soo koobi lahaa farqiga u dhaxeeya qofka inuu maxaa lahaayay gurigiisa ku dhinto iyo inuu maxaa lahaayay hospitaal ku dhinto oo cudurkan dartiis u dhinto oxygen la'aan waxaa waaye horta marka ugu horeysa maxaa waxaa la ogaanaa qofkaas waxa uu dhintay marka labaadna waxaa la dabagalaa cudurkan intuusan qofkan soo ridin inuu dabagal lagu sameeyo oo lala tacaalo inta oo maxaa la tacaalid leedahay
midda saddexaad su'aasha يعني حكمت tahay hore rabaa inaad doctor cabdiweli ku بسم الله الرحمن الرحيم عبد النور waa maasan tahay akhyartuna waa maasan yihiin agaasimaha iga horreeyay dhammaan waxaan u maleynayaa waxaa jirtay safiyo oo weydiisay muxuu ahaa maxay ku kala duwan yihiin qofka guriga inuu ku dhintay isbitaalka inuu ku dhinto haddii aysan oksijiinkii loogu talagalay lahayn safiyo iyo dhammaan waxaan rabaa inaan ogeysiiyo qofka imaanaya oo muxuu ahaa xanuunkan ku dhaca wuxuu qabi karaa xanuuno kale oon oxygen kaliya u baahnayn sokor uu qabi karaa dhiig karo uu qabi karaa ma xarunta in la furaa waxa weeyaan waa ra'yiga ugu fiican waxaan lagu qaatay muxuu ahaayey cilmi baaris iyo waaqaca jira lagu saleeymaan la iskama furin waana saasaana muxuu ahaa haddii la yidhaha looga shaqeyn doonaa waxaan rabaa inaan sidoo kale diyaaradaha horaan uga hadlay aniga fikirkeyga ku aadan in muxuu ahaayey waxaan qabaa la fududeeyo maadaama baabuurtii dadkuba isku meel ay ka imaanayaan oo dadka diyaarsadaan is u saamoobin si aada waxaan rabaa inaan muxuu ahaayey aadam muxuu yahay toolska la isticmaalaa waa iska cad yihiin toolska wacyigelinta tools oo national oo dowladda iska la isticmaalayo waa tababar ay muxuu ahaayey WHO iyo wasaaradda caafimaadka ay leeyihiin toolskiisa oo wasaaradda caafimaadka leedkeeda leedahay guideline-ka muxuu la isticmaalayo oo isbitaallada xarumaha iyo wacyigelinta la geenaya dhammaantood waa guidelines national oo wasaaradaha caafimaadka idaacadaha loo isticmaalayo laftooda waa fariimo ay bixiyaan wasaaradaha caafimaadka oo waa tala bixin wasaaradda caafimaadka markay liidka tahay waa mahadsantihiin doctorka macluumaadka una sii waa uga mahad celinaynaa waxaan ku soo dhaweynayaa doctor tahliil ibraahim cabdi agaasimaha hirshabelle doctor wixii kaaga baxay inaan soo koobtid 2 daqiiqo inaan ka dhigtid aan codsanaynaa waqtiga aad noo cariirinaya soo dhawo doctor waa dareemi kara waqtiga cabdinuur aad mahadsan tahay agaasimayaasha kalena iyagana aad u mahadsan yihiin su'aalaha inta badan way ka jawaabaan laakiin waxaan rabaa waa muhiim sidee loo gaarsiin karaa adeega meelaha fikir iyo wacyi dheeri ah intuusan imaanin ka hor covid waxaa jirtay in laga shaqeyn jiray meelahaas ay ka shaqeeyaan nimankan ay xukumaan al-shabaab
ha yaraato shaqada laakiin at least wax un ay socdeen waxaa jirtay kambaniyo loo marsii jiray adeega sidoo kale hay-ada oo local NGO oo ayaga ay mataqaanaa sheeg ay aaminsan yihiin ayaan u mari jirnay adeegyada caafimaadka sidoo kale waxaa ka xusi kara Samsung Foundation waa local NGO oo ka shaqeeyo across the country marka inta badan waxaan gaarsiinaa meelaha ay ka talinayeen ayaa waxaan ka furnay xarumo caafimaad ee ran garanaysa hay-adda Zamzam saasa marka lagu gaarsiin jiray xagga caafimaadka adeega meelaha hadda ay ka jiraan ay ka taliyaan al-shabaab hadda arrimahan covid-ka ah xaqiiqatan bayaan ay ka soo saareen sida hore loo sheegay marka waa arrin aad complicated u ah wixii hadduusan qofka aaminsanayn qofkii aaminsan ku dhaqmanay la ciqaabayo xaqiiqatan waa arrimo aad u xasaasi u ah marka insha Allah hadduu ilaahay yiraahdoo waxba aan ka baranaynaa mar kastaba markay timaado inuu sameeyo oo propaganda mararka qaarkood ay tahay mid wax xaliso laakiin waxaa la rabaa mid constructive ah mid oo destructive ah anaga hadda waxaa waaye waa caqabad marka tan ugu dambayso ah lacagaha dowladda Hirshabelle waxaa soo gaartay lacag 500 oo kun oo dollar wasaaradda maaliyadda ay soo martay qorshaheedii iyo nidaamkeedii iyo systemkeedii waa gudbinay wasaaradda caafimaadka waxyaabaha aan ku qabanayna waa waxyaabo cad sida xarumaha lagu isolate gareeyo dadka iyo xarumaha lagu daaweeyo iyo wacyigelintii shaqaalaha ka shaqeynaya caafimaadka in sare loogu qaado ayagana mushaar loogu raadiyo waxyaabo noocaasaan ugu talagalnay qorshahana waa gudbinay wasaaradda maaliyadda jirtaa waan insha Allah waa ka sugaynaa jawaabta ugu dhaqsiyaha badan su'aasha ugu dambayso ah local community-ga sidee u qayb qaadan karaan barnaamijkan gabadha ay ka hadlayso oxygenada iyo waxyaabo noocaas oo weydiiyey xaqiiqatan bulshada Soomaaliya waa bulsho oo isku kaalmaysa markasta dhibaato dhacdo hay'adaha macallinada iyo kambaniyada kala duwan ama sida telecommunicationska hormuud iyo waa arkayseen wasaaradaha caafimaadka qaybo kamid ah waliba federaalka laga ka farqayn doono aad iyo aad u mahadsantihiin waa su'aalaha intaasaan waa tahay Dr. Ibrahim aad iyo aad kugu mahadcelin Dr. Tahliil Ibrahim Cabdi ayuu ahaa kaas aad u mahadsan tahay macluumaadka kooban aadna siisay waxaan rabnaa barnaamijka inaan soo gabagabayno waxaan u mahadcelinayaa saddexda agaasime nagala qayb galay ugu horeeyo Dr. Hussein Maxamed Daahir agaasimaha maamulka agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Dr. Cabduuli Maxamed Axmed oo ah agaasimaha galmudug ee wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale Dr. Tahliil Ibrahim Cabdi oo hadda ugu dambeeyay oo ah agaasimaha Hirshabelle ee wasaaradda caafimaadka Hirshabelle waxaan rabaa si kale laab leh inaan ugu mahadceliyo waxaan sidoo kale inta in la mid ugu mahadcelinaya dad ka soo qayb galay dhageystayaalkeena sharafta leh su'aalaha aan weydiiseen oo aad ka soo qayb qaadateen runtii waxa kuwa sharaf leh oo qiimo badan iyo xiise ku soo kordhiyay barnaamijka inaan si fiican ula socono annaga dhan ay tahay waxaan rabaa inaan xasuusiyo doodahu way sii jiri doonaan macadka haybad wuxuu qabtaa doodahan maamul goboleedyadu way sii socon doonaan sidoo kale arrimaha covid-ka way sii socon doontaa laba maalin kadib ayaa haddana dhacdo kala dhici doontaa waa idina soo sheer garay doonaa barnaamijkan laga dooday qofkii raba inuu dib u dhageysto ama asxaabtiisa u gudbiyo wuxuu ka heli doonaa barta facebookga ee macadka loo yaqaano haybad macadka horumarinta iyo cilmi baarista geeska africa ee loo soo qaagaabay haybad sidoo kale youtube-kan aad naga heli kartaan baraha bulshada ayaad nagala socon kartaan barnaamijka waxaan daadihinaya aniga oo Cabdinuur Daahir oo ku sugan Istanbul waxaan ahay saxafi iyo cilmi baare ka tirsan TV-ga qaranka Turkiga ee TRT loo yaqaano tan iyo kulanti dambe khayr iyo barwaaqo isaga tagaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin Ramadaan Kariim
waan salaamaynaa hadduu leeyahay